الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم in yar oo ku saabsan xisaabta haddaan ka hadlo waxyaalaha sababaha horta ardada moostale inay maadada xisaabta ku liitaan waxaa sabab u ah oo u weyn waa 3 qodob markaan fiiriyey maadaama waqti badan aan xisaabta ku dhex jiray aan dhigayay aan ka qayb qaadanayay baridooda ardada iyo fahansiintaba koow waxaa weeye qodobka koowaad ardada oo aaminsan wrong perception maadadan way adag tahay qof markuu aaminsan yahay waxaan waa adag tahay lagama yaabo inuu waqti badan geliyo waaba ka baqayaanba wrong perception qodobka labaad waxaa weeye oo ardada u keenay inay xisaabta ku liitaan waa qofkii haddii uusan lahayn macnaha dadaal ama uu kaba aaminsan yahay baqitaan uu ku jiro waxaa adag inuu asagana wax ka shaqeeyo xisaabta waxay u baahan tahay marka shaqo in laga shaqeeyo oo waqti la geliyo si wax badan looga helo macnaha fahan ah marka maxaa halkaa ka baqan waa lack of practice ma jiro waxaa laga yaabaa arday inuu soo qaato oo galaaska ku soo fahmo oo wixii soo qaato laakiin uusan dib ugu laaban haddii wixii aan lagu celin oo aan lagu celcelin oo waqti la gelinna way adag tahay inaad meesha arabtay ka gaartay maadaama ay nambaro tahay maadooyinka kale waxaa laga yaabaa qofka inuu akhriyo uu konsebti ka qaato hadhow ka warrami karo laakiin xisaabta war uma baahna shaqay u baahanta qodobka saddexaad oo ardayda dilaya maadada xisaabta oo ku saabsan waxaa weeye baqdin waxaa laga yaabaa isagoo garanaya xisaabtii ama ka shaqayn kara inuuba baqaba uu ka baqo su-aashii tusaale ahaan waxaa laga yaabaa su-aal brosees yar leh markuu fiiriyo marka galaaska uu jooga uu ka shaqayn karo imtixaan markuu galana uu garan waayo oo markuu dul yimaado warqadii wuxuu arkayaa baawarkeeda iyo sawiradeeda halkaas ku mashquulaya automatically marka waxaa dhacaysa qofka inuuba su-aashii uu keeni waayo marka practice la-aantii iyo baqdintii waxaa qodobka saddexaad adkaynaya waxaa weeye waxaa laga yaaba qofkaan inuusan baqaynin ama muxuu ahaa inuusan baqayn iyo inuu practicekiisu badan yahay laakiin ay jirto lack of basekiisii baa yar qofka hadduu macnaha baseka uu ka hooseeyo oo basically uusan wax badan haynin way adag tahay inuu ayadana shaqeeyo maadada xisaabta keliya maaha ingiliishka lamida iyo xisaabta laga hoos raacaan maadooyin kaleo dhan base bay u yihiin marka baseka hadduu qofku iska adkaeyo way fududahay inuu meesha uu rabay uu gaaro waan aragteen imtixaamaadka waxaa u badan waa basically marka taasna waxaa sabab u ah dugsiyada hoose dhexe oo macnaha ardadii awoodda aan u saaraynin bayska inay ka dhisaan qofka waxaa arkaysaa form 4 fadhiya ama form 3 fadhiya aan ku dariya ka jar midna aan garanaynin way adag tahay marka inuu formula apply gareeyo waxaa anigu aad ugu boorinayaa qofkii raba inuu waxbarto oo wax isku dayayo inay horta kaa go-an tahay bayska iska adkaysid dadka ehelka u ahna aad la kaashatid aad saas uga harin intaas afarintayda gaari imtixaanka maanta aan galnay isagu oo December ugu dambeyso 2021 maanta oo Jimcaha waa Part 1 waxaa haray 2 Part oo kale Part 1 uu dhammaaday Part 2 baa hadda bilaabanaya oo u badan 3 iyo 4 iyo jabtaraha raadiya oo noqon doona maxaa la yidhahdaa 3ga iyo 4ka ba markaan awoodda ugu badan insha allah rajaynaynaa inaan gelino si sanadkan isbedel dhammaystiran u yimaado sidii caadiga ahayd 6 sano oo isku xigta ardada top 10ka gelaysay waqti badan ayaan isla qaadanay alxamdulillaah rabbil caalamiin laga bilaabo ilaa 2015 ilaa 2021
22 hadda la gelaya arday hadda ka baxda 21 ahayd maasha Allah waxaan rajaynayaa sanadkaana arday badan inay top 10 ka soo gali doonto tiradooda waxaa sheegi doona waqtiga haddii Ilaahay idmo